بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan nahay walaalkiin wariye Cabdullaahi Baalgoray mar kale daawadayaal waa idin salaameynaa waa galab kale oo galabkii hore ka duwan kana farxad badan waa idin salaameynaa waxaan ku suganahay hooygii labadii waayeel ee aan idin soo gudbinay ee dhibaataysanaa ninkaas asagana odayga ah soo dhow ninkan asagana odayga ah oo mas'uulka ka yahay ninka asagana odayga oo mas'uulka ka ahaa ee dhaleen caruurtiisii ay islaanta oga tagtayna ay kuban yihiin waa 4 ciyaal ah waa 5 ciyaal ah oo ay ka tagtay hooyadood daruufa iyo xaaladda adag ee ka jirta halkan awgeed iyo ninkan oo waxba haysanin oo waalidiintiisa ku rafaadsan galabka ka horeeyay waxay ahayd murugo waxay ahayd waxaan la iloobi karin waan idin soo duubnay waan idin la wadaagnay walaalihii Soomaaliyeed ee khayrka jeclaa ee aan muuqaalka isaga ah la wadaagnay way ka soo jawaabeen khayr Allah siiyo lacagtan aad u joogtaan waa lacag 2 milyan waa lacag 2 milyan iyo 400 oo kun ah oo shilinka Kenya ah waxay u dhigantaa 2 milyan waa 20 kun oo dollar 400 waa 4 kun oo dollar waxa kale oo jirto hooy baa loo sameeyay ilaa iyo 6 qol oo hooy ah waxa loo sameeyay oo kale in la soo gaarsiiyo gaari dameer ama karata hadba saa u taqaantaan maadaama ninkan xirfadiisa ay ahayd in karata uu ku xamaasho dadyow kale maartay laga soo ajeeray ama uu ka soo bariyay saas awgeed dad muslimiin ah ayaa waxay soo sadaqaysteen karatooyin waxa kale oo jirta gogoosha si wanaagsan waxa soo gaartay ilaa ku dhawaad 10 matarees iyo 4 sariirood intaan haatan hayno waxa kale oo soo gaaray raashin aad u fara badan oo runtii si aad ah muslimiinta ugu soo sadaqaysteen gaar ahaan kuwooda kula noolaa xaryaha qaxootiga oo ayagu wax saas aan ku sii dhaamin dhammaan guud ahaan muslimiinta soo caawiyay dadkan Soomaaliyeed waliba waayeelada ah ee waalidka ah ee labadeeda garab fadhido waan u mahadcelinaa muslimiinta soo caawiyay dhammaan halkan waxa ku idil culimadii iyo mashaayiqdii ka ariminaya arrimaha diinta ee xaryaha qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan xerada qaxootiga Ifo ee aan muuqaalkan ka soo duubayo dhammaan dadkan agaarkiga fadhiyo waa culimadii iyo waliba mas'uuliyiintii xeradan qaxootiga waa dadka mas'uuliyiinta ka ah xeradan waan salaameynaa dhammaan muslimiinta waan u duceynaynaa lacagta ayada walaalayaal oo aad soo dirsateen waxa jira dad fara badan oo ma aragtay dacayad ama waxyaabo kale tabinayo oo sheegay in lacagihii ama muuqaaladii anaga aan soo duubnay ay yihiin been abuur walaalaha muslimiinta galabta waxay indhahooda ku arkaan lacagta ayadaheed ee aad soo dirteen walaalayaal in sidii la rabay ay u soo gaartay waalidiinta aad ugu tala gasheen lacagta ayadaheed waa 2 milyan iyo 400 oo shilinka Kenya ah hortiina ayaan ku tirani 100 kun oo shilinka Kenya ayay ma aragtay u xirantahay u kala xirantahay sidan hadda waa 100 kun hortiina ayaan ku xisaabin hadii qof walba waxaan doonayaa inuu ku qanco sida hadda 100 waay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa 1 milyan soo ma 1 milyan waa 1 milyan waa meeshaas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مليون كله 2 مليون 2 3 iyo midka ambaasada ku jira oo balanska ah ee soo bixi waaye waa 2 milyan iyo 400 lacagta ayada way ka madax banaan yihiin guryaha la dhisay ee 6 qol aan maartay dhabarkayga dambe iyo guud ahaan blogaba way ka madax banaan yihiin lacagtan raashinka lacagtu uu ka madax banaan yahay gogoosha lacagtu way ka madax banaan tahay muslimiinta soo caawiyay qoyskan waan u mahadcelinaynaa waxaan walaalayaal u codsanaynaa in propagandada la joojiyo waxaan waxa weey wax dadkan muslimiinta Soomaaliyeed aan ku caawinayno waxaan u qaban karna malaha kaliya waxaan u qaban karna walaalahanagu waxa weeyo in aan codkaanaga ku biirino oo muuqaalkooda kooda dhibaataysan aan u soo gudbino muslimiinta Soomaaliyeed ee walaalahanaga ah jeebkaanaga ayaan isticmaalayna shidaalka gaariga wax kasta anaga jeebkaanaga isticmaalayna waad maasantiin waxaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wa bina nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du
ugu horreyn ilaahay baa mahad oo dhan ay u sugnaatay waxaan kaloo ku mahadinaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee qalbigooda u soo dhaqaaqay waalidkeen waa waalidkan weeyaan ee dhibaataysan ee duruufta ay haysato qalbigooda u soo dhaqaaqay ee ka soo jawaabay iyagana way mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran waxaan kaloo cadaynaynaa xoolaha la soo baxdeen in meel kale aysan marin qof kastoo soo sadaqaystay walaalahooda wax u soo diray lambarada ay ku soo dirayeen anaga gacanta ku haynay ka culum ahaan baan la maamulaynay xataa kii wiilka uu iska lahaa duqeyda ay dhaleen anaga gacanta ku haynay kan kale wariyahana asagana kalsooni baan ku qabnaa marka walaalaha waxaan u sheegaynaa meel kale inaysan wax marin dadkii walaalaha shalay taladiin soo dhiibayna aad caawiseen ayna idin muuqato maanta guryaha loo dhisay iyo maaragtay lacagtan hortiina taasho iyo bedelka ayaga naftooda ka muuqda iyaga caruurtoodiiba jazaakumullahu khayran sadaqadiinana ilaahay maqbuulaha ka dhigo insha allahu waxaan ku wareejinaynaa maamulka qaxootiga oo Jermanka culamo kalena way noo ducayn doontaa insha allah باذن الله تعالى bismillahir rahmanir rahim walaalayaal aad baan u faraxsanahay maanta waa maalin aad iyo aad noogu weyn ilaahay baa mahad iskale mahadda labaadna waxa iskale wariye baalgoray oo dadkan waalidiinta ee dhibaataysan galiyay khadka dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ka soo jawaabay ee maartay sidan quruxda badan ee maanta ay u fadhiyaan u fariisina iyagana waa mahadceleynaa ilaahay baa mahad iskale waan idin duceynaynaa waxaan cadeynaynaa anigoo ah Jermanka xarada guud ifro maxamed cabdi colow in maanta lacagtii 2,400,000 ee soo dhiibteen ay soo gaartay dadkii loogu talagalay galabtana aan markaati ka nahay dadka ay ku soo dhaceysay gacantooda ay ku soo dhaceysay Allah barakeeyo dad muslimiin oo culimo ah oo aad u kalsoonayeen lacagtii marka dadkii way soo gaartay guriga baad u joodin goosha baad u joodin kuwa propagandada iyo dacayada sheegayo waa beenalayaal warkooda waxba kama jiro dadkii shalay masaakiinta ahaa ee rafaadsanaa ee gaajaysanaa waxay maanta u muuqataa inay yihiin dadka ifo uga hantiroon ilaahay baa mahad iskale dadkii ka soo jawaabaa iskale bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam ma badinayo hal xadiis baan ugu odhanaya culimadii horaa sheegtay wariyaha sheegay Sheekh Xasan ma sheegay Jermanka sheegay shalay iyo maanta waa laba maalmood oo kala duwan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam al-yad al-ulya khayru min yad as-sufla gacanta sarreysa ay ta hooseysa ka khayr badan tahay intii soo sadaqaysatay sadaqadeedii wata amaam al-mala dadka hortiisa taala ma sha Allah ilaahay idin barakeeyay waxaa kaloo rabaa inaan idhaahdo yada nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam inna allaha yuhibbu an yura athara ni'amihi 'abduhu athara ni'amihi أو في هذا المعنى إلهي وحجة لها أدون كيسة إنه كأركو نعمة أوسيي على مدى هذه آثار هذه شري عقاونايين ويذر وفيسنايين ما أنت وعدك وضقوح لبضان حرقوانا يا ما شاء الله تبارك الله سبب كان بدك إذن كان سكرها الله إذن بركيو الله إذن حفظيو إنت أثانو له ما أنت وحروا واردينها بلياننا إلهينا كنز جيسة هيدين بحيبضو خلق هذا السيدين إن شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله تبارك الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وهو دعاء سنينا انت الماشي فريدين امين تتراهدو waxaan rabaa inaan horta muslimiinta intaan ducayn aan xasuusiyo wadaadkii shalay ooyay ee la murugaysana ee markaad maqtaca furto oo hintiisa aadan u dul qaadanin muslimiintuna ay u dul qaadan maanta wax ka farxad badan ma jiro ilaahay miisaan xasanaadka Allah ugu kabo Cabdullaahi Baalgoraya wariye aan aad ugu kalsoonahay oo aad u qiimo badan oo codka sidoo yahay u gudbiya shay walbana buugiisan uu ku soo qortay shayna ma hoos marin kullu ilaahay baanan ka qadinayn maalinta qiyaamo wadaad aan ugu kalsoonahay nin aad u qiimo badan oo wax badan baahida qaxoontiga ka soo qayb qaatay weeye taa amaan anaga noogama baahna ilaahay agtiisu amaan uu kaga heli doona insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryayaa nin walba oo xoolahan la soo baxsaday oo ku dhaqmay xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam man faraja kurbatan an akhi kurba nin walaalkii ka fayda tu aakhira ayaa laga fayda ilaahay waxaan ka baryaynaa muslimiinta cudurkan safmareenka ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu banaanka alla ka mariyo ilaahay inuu daweelada ka raaciyo ilaahay inuuna dib adduunka tusin aakhirana dib inuunan ilaahay tusin ilaahay xoolaha hantidii ay hoos maalinta qiyaama uga dhigi lahayd alla inuu ka dhigo ilaahay inuu hoos uga dhigo awlaadooda qurbada joogta inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu barakeeyo
awlaad salaax iyo wanaag ku sugan alla inuu uga dhigo maalkooda iyo hantidooda inuu ilaahay u barakeeyo waxay la baxeen laba laabkooda iyo toban laabkooda inuu ilaahay gacantooda soo geliyo wadaadadii ka shaqeeyey cabdulaahi iyo wadaadkii soo tusay ee ummadda indhaha ugu kala furay inuu ilaahay iyagana ka abaalmariyo xoolo khayr qaba gacantooda soo geliyo xoolaha sida ammaanada iyo nasaahada ee isaga soo gudbiyeen ilaahay baa khasaa'intiisu furantay inuu ilaahay khasaa'intooda ka irsaaqo qoyskan maamadan hadda way taahaysay way xanuunsanaysay xanuun bay sheegatay waa waayeel weeye inuu ilaahay xanuunka ilaahay ka dulqaado lixdooda lixaad allah u caafiyo xoolaha in ilaahay uu u barakeeyo ilmahooda ay ku korsadaanoo inna maca alcusri yusra baa la yidhi cusri bay soo arkeen ilaahay yusriga ugu bedelo inuu ilaahay u barakeeyo intii ka qayb qaadatay xeryaha qaxoontiga dad masaakiin oo walaaladooda la danqaday baa jire ilaahay ayagana inuu barakeeyo nin walbo shilin soo dhiibay kiilaba allaha ka dhigay inuu ilaahay barakeeyo meeshanan hadda joogno gabadh baa ilmo agoon u baxsatay baa la yidhi oo reerkan siisay ilaahay subxaana wa tacaala gabadha inuu ilaahay agoonta ilaahay uu la koriyo ilaahay inuu la qabto sadaqada inuu ilaahay iyadana uu ka lumin nin walba soo tallaabsaday inuu ilaahay barakeeyo intan markhaatida ah nin walba ilaahay inuu khasaa'intiisa ka dharjiyo ilaahay baa wax bixiye ilaahay baa tanna bixiye ilaahay inuu nin walba khasaa'intiisa alle uu ka dharjiyo ilaahay inuu xoolaha dadkan ku howlaan inuu ilaahay uu ku xifdiyo wixii dembi allaha naga dhaafo wixii wanaaga ilaahay keligiisa iska laha subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun cala almursaliin walxamdulillahi rabbil caalamiin sallallahu alayhi wa sallam waxaan rabaa inaan farax dareensanahay insha Allah wadaadkii baan ahay maartay weeye maanta farax baan dareensanahay weeye maanta aad baan u faraxsanahay alxamdulillaah shukri 2,400,000 baa hortayda taalo sidaan baan ana rabay alxamdulillaah shukran jazakallahu khayr jazakallahu khayr.